بايدودا كوي كبيرة بهدو سلحدة وقنت قوي وبابعودا كوي بلعبة طب كم بحايا بللناي وبايدودا كوي كبيرة بهدو سلحدة وقنت قوي وبابعودا بدبراني 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 بوغي ودنو لفين بوغني بدبراني صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. أما بعد وحويان هل كان وساردي وحبرشده قبل كسلل ساكو أي نو فرتي وسير كوسارده وحبرشده مرو سمسم عبد آدم يو أجاسي وأي لسعدا وفتي أي هجامل سيدو أي كمدين أجاسي لها جود وسارده وحبرشده يو تعليم الصريح iyo agaasimaha maamulka lacagta marwo fadxiya dubad waxaan ku soo dhaweynayaa oo hadalka aniga iga dambeynaya agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ku soo dhawow agaasime ugu horeyn ilaahay baa mahad leh marka ku xigta waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa gudoomiyaha gobolka iyo waftiga qiimaha lahayd in soo dhaweysay aad baan uga mahadnaqayaa sidoo kale waxaan mahad qiimo leh oo ah inaan xusno dhismahan qiimaha leh ee maanta joogno ee xarunta Silal ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo runtii dhismaha aad u qurux badan lacag qiimo leh ay gashay fikirkeedana lahaa dhagax dhigeedana lahaa oo aad uga mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Samsam Abdi Aadan runtii waxaan aragnaa in dhismahan quruxda badan uu bilow ka yahay waxqabadka wasaaradda waxbarashada ee gobolka runtii mahadnaqayaan soo jeedinaa insha Allah fikirkeedana ka yimi sidoo kale waxaan aad iyo aad anagu haddaan nahay wasaaradda waxbarashada aan ugu dadaalanaa inaanu kobcino waxbarashada waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland gees ilaa gees inta Jamhuuriyadda Soomaaliland ka koobantay inaanu kor u qaadno waxayna ka mid tahay dadaalka ay wasaaradda waxbarashada ugu jirto waxaan aad iyo aad idinkana idinka codsanaynaa wasaarad ahaan deegaan ahaan gobol ahaan inay idinkuna nagala shaqayn doontaan sidii wanaagsaneeda markii horeba nagala shaqayseen waxbarashadana kor u qaadi doontaan ardayda dugsiyada gashana runtii dadaali doontaan ina kor u qaadaan ardayda numberka ardayda ee galaya iskuulada annaguna aan dadaalka runtii aanu gaarsiino waddanka oo dhan waxaan jecelahay intaan wasiirka u gudbin maadaama uu gudoomiyihii gobolku joogo inaan isaga hal kalmad siiyo kadibna in wasiirka wasaaradda waxbarashada aanu ku soo gunaanadno ku soo dhaw gudoomiye horta wasaaradda waxbarashada aad baan ugu mahadnaqaynaa siiba haddana wasiirada aad baan ugu mahadnaqaynaa oo dhagax dhigan wuxuu ahaa malaha 2 bilood horteed buu ahaa 2 bilood dabadeedna waa ka way dhamaysay waxqabadkii ugu horeeyay ee maaragtay wasaaradii ay intooy muddo gaaban qabsato markaaba ay noo dhamayso waa tii ugu horeysay aad baan horta wasiirada ugu mahadnaqaynaa haddaan anagu reesayraanahay haddaan reesalanahay haddaan maxaan ku nahay dadkii deegaanka aan nahay aad iyo aad waxtarna waan ka tirsanaynaa waana kii u horeeyay ee maaragtay intay meesha joogtay iyadoo 3 bilood dhexdeed soo martay ay ka qabatay ta kale wasaaradaha kale ee magaalada madaxda yaalay xarun maamul inta rahi wada yar tahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda weeyaan inta kale waa meel xafiis ay ku shaqeeyaan iyo waxa noogu xiga ka kastamyada noogu xigo oo isaguna 2 meelood meel la yacadiya meel baashiya isaguna marka wasaaradaha kalena waliba waxa ka codsanaynaa sidaas in leeg ay maaragtay wasiirka waxbarashadu Samsam ay samaysay inay maaragtay iyaguna sidaas oo kale ay noo sameeyaan xarumoodii ay wada sameystaan qayb ka soo wasaaradina halka waxay ay keento mar labaad waxaan mahadnaqayaa wasiirada
oo aan leeyahay wasiir waad mahadsan tahay sidaad noo maaragtay wax noogu qabatay baan kugu soo dhawaynaynaa sidaad magaalada noogu nuurtay baan adigana ilaahay inuu kugu nuuro aan kugu rajaynaynaa soo dhawow dhulku waa dhulkaagii dadku waa dadkaagii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaha gobolka taliyaha booliiska iyo wasaaraddeeda cidda ka socotay agaasimaha guud iyo agaasimaha maamulka iyo cali oo ah technical advisors wasaaradda intuba aad bay u mahadsan yihiin iyo miidiyaha iyo ciidamadii nala socday ilaa xalay iyo dadkiina soo dhaweeyeyba aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii waxa weeyaan horta mas-uuliyad baana saaran oo wasaaradaha imika aad tidhi inay qolo walba ka furato way ku khasban yihiin waayo madaxweynuhu waxyaabaha wasiirada kula dardaarmay waxa weeyaan in meel walba la gaarsiiyo waxqabad oo weliba laga fuul yeelo meelaha xeebaha ee dhibaatooyinka badan ku jiraan sayla ilaa laas qoray waxa weeyaan in aad looga shaqeeyo hadday waxbarasho tahay iyo hadday caafimaad tahay iyo hadday biyo tahay iyo hadday daryeelka kale dadku u baahan yihiin tahayba waxa weeyaan mid ay ku khasban yihiin wasaaraduhu inay sameeyaan kitaabkuna meel buu jiraa laakiinse wax in la sameeyo marka waxa weeyaan waxyaabaha culayska la saarayo waxa weeyaan waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha waxyaabaha asaasiga ah ee ay dadku u baahan yihiin waxa weeyaan waa mid ay wasaaraddu ku khasban tahay inay gaarsiiyaan inta Somaliland maabkeedu ku fadhiyo sayla runtii waxa weeyaan meelo badan oo dayac badan ka jiray waxaanu dawladdana ay diyaar u tahay inay wax badan ka qabato runtii dadku ay bartaan inay ku shaqaystaan oo isbedel muuqda laga helo sayla badda intaa la eg leedahay waa dhul haddii wax laga soo saaro wax badan ka soo bixi karaan oo noqon karta meel haddii la isla shaqeeyo waxaan anu aad u soo dhaweynaya inay dawladda hoose ay aad noola shaqayso waayo imika berbere markaad tagto iskuullada marawaxadihii iyo marmarkii iyo dhismayaashii dawladda hoosaasaysiya dawladda hoose markay carruurtii dar yeesha cashuurtii ay qaadayeen ay marawaxada ugu sameeyeen iskuulladii dee wasaaraddiina waxay samaynaysaa macallinkii iyo buuggii iyo wixii ay u baahnaayeen ayay ugu dadaalaysaa runtii meelo badan waxaanu isla shaqaynaa dawladda hoose oo aad u bixiya waardiyayaasha bixiya imika waxaa la ii sheegayaa sayla inay bilaabeen in labada hablood ee nadiifiya meesha iyo hal waardiye ay bixiyaan runtii waa tallaabo hor leh waxaan aad ugu sii mahadnaqayaa isna barasaabka oo runtii si aad mug leh loo soo dhaweeyey oo ilaa shalay ilaa jabuuti la geeyey oo naga soo celiyey oo runtii shalay oo dhan aan shaqo kala qabanin annagana caawiyo mooyaane markaa runtii iyaduna waa wada shaqaynta aanu sugayno aanu doonayno in meesha laga shaqeeya si ay horumar u gaadho taliyaha booliisku isna heegan buu shalay oo dhan oo ahaa runtii waxaan doonaynaa in laysla shaqeeyo si ay ilaa halkan waxaa loo shaqaynaya waa ummadda waa carruurta waa dumarka waa dadka masaakiinta si aynu ugu shaqayno haddaynu nahay de mas-uuliyiintii ama gobol ama degmaha la joogay waa in laysku xidhnaadaa la wada shaqeeya wada shaqayntaasaa lagaga bixi karaa in dadkii loo shaqeeyo si qofka hadduu moodo isagu inuu soo shaqo tegay dabeedna kolba yidhaahdo waxaana iga maqaniyo waxaana de isagii baa naftiisii u doodaya dadku uma doodayo marka runtii qofka mas-uulkii waa inuu tiisa yara ilaawaayo ta dadka meelaha soo maro arka dadka dhibaataysan inuu tiisa la qaayo yidhahdaa dadkan horta wax u qabo marka runtii taasaanaynu wax ku gaaraynaa sayla oo aad baan uga shaqaynaynaa mashruuc ayaga weyna bilaabmay horumarinta cilmiga sayla oo ku jirta meelahaan ka shaqaynayno iskuulkana imka la ii sheegay 2 fasal in lagu kordhiyo oo 6 fasal oo qura ah isagana insha allah waan u dadaalayna in 2 fasal lagu kordhiyo xeebtoo dhan waan maro wixii ka baahan wixii ka dhibaataysnaa waan ognay macallimiin iyo cid walba runtii insha allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu nala qabto oo sayla isbedel waxbarashada dhinac walba ugu arka insha allah aad baan u mahadsantihiin